lagu fasiraa in ay yihiin xayawaano iyo geedad dhowr milyan oo sano ka hor dhintay oo ay ku jireen dhulka hoostooda. Samaysanka shidaalka waxa ka qayb qaata in uu ahaado organic oo ah shay noolaa sida xayawaanka ama dhir. Sidoo kale, kulaylka iyo temperature-ka uu ku hoos jiray dhulka iyo timekii oo ah intaasoo milyan oo sano ay ku qaadatay si uu shaygani u noqdo shidaal. Iyo ta ugu dambaysa oo ah cadaadiska uu ku hayay dhulku. Soo saarista shidaalku maaha arrin sahlan maadaama oo loo baahan yahay in dhulka hoostiisa laga soo foqo ugu yaraan 1800 oo mitir. Marka la soo saarana waxaa loo baahan yahay in dib loo mariyo warshad si loo diyaariyo in la isticmaali karo. Marka la soo saaro waxaa lagu qaadaa tuumbooyin oo geenaya si toos ah warshadii, taasoo warshadu ugu kala saarayo shidaalka noocyo kala duwan iyada oo la adeegsanayo heerkul oo dib loo kulaylinayo. Ka koobaad waxaa laga sameynayaa gaas oo ah gaaskii aan ku isticmaalaynay guryaha sida marka cuntada la karinayo kale. Waxaa lagu kulaylinayaa heerkul gaadhaya 20. Labaad oo ah gasoline oo ah shidaalka caadiga ee aan isticmaalno baabuurta. Isna waxaa lagu kulaylinayaa heerkul gaadhaya 30 ilaa 105. Ka saddexaad oo ah ka laga sameeyo balastiga iyo sidoo kale dawooyinka. Isna waxaa lagu kulaylinayaa ilaa 160 heerkul gaadhaya. Sidoo kale, shidaalka diyaaradaha oo isna lagu kulaylinayo heerkul gaadhaya 230 iyo shidaalka nooca loo yaqaano diesel oo isna lagu kulaylinayo heerkul gaadhaya 425. Iyo ka ugu dambeeya oo ah gaamurkaas oo loo isticmaalo marka la dhisayo wadooyinka ama waxyaabo kale. Kaasna waxaa lagu kulayliyaa heerkul gaadhaya 450. Qaabka ayaa loo kala saaraa shidaalka. Haddaba maxay kula tahay? Commentiga noogu reeb.